dowladda Andalus waa mid ka mid ah xadaaradihii ugu ballaadhnaa ee soo mara caalamka muslimiinta iyo islaamka intaba waxaana dowladani ay sii jirtay ilaa 800 oo sanadood 800 sanadood waxay ku maamuleysay sifayaal aad u qurux badan marka la damco in laga sheekeeyo dowladan waxa markiiba maskaxdaada ku soo dhacaysa mid ka mid ah heerarkii ugu quruxda badnaa ee ibn aadam uu gaadho waxaana horumar ka gaadheen dhanka diinta dhismayaasha handasada iyo sidoo kale fiisigiska chemistryga iyo dhammaan sayniska oo dhan sida cilmi falaga waxaana tusaalayaal ay u noqon kartaa dowladaha waaweyn ee imika caalamka ka jira dowlad 800 oo sanadood jirtay oo misana dunida aan imika saliya raadtona ku lahayn way dhisantay in badan ayay dhismaysay in ka badan 800 oo sanadood ayay dhismaysay si fudud baanay ku burburtay waxa tusaale u noqon kartaa dowlad imika la yagleelayo oo lagu bilaabayo kitaabka Ilaahay iyo Quraanka Kariimka inay horumar ka gaari karto dhinac kasta waxaana tusaale muhiim ah u noqon kartaa dowladahaas la dhisay ee sida quruxda badan leh maanta loo dhisay aan imika arkayno si fudud inay ku burburi karaan waxa inta badan laga soo shaqeeyay kadib tamardaradii ku timid dowladii Umayyadeenta waxa boqortooyadii Dawaa'iftu damac ka galay dowladda waxaana ay ka dhex abuureen khilaaf in badan jiitamay khilaafkan ayaa wuxuu salka ku hayay in ay sameysmaan dowlado ay maamusho dowladda Andalus oo ka go'an waxaana suurto galay in ay sameysmaan dowladahaas in ka badan 20 dowladood ayaa ka go'ay dowladda Andalus waxaana aad u kordhay damacii dowladda Andalus ee dowladaha kale sida dowladihii reer Yurub oo doonayay in ay fursadan ka faa'iideystaan balse waxa soo baxay dowladii muraabidiinta amiir hogaaminayay oo la oran jiray Yusuf bin Tashfin oo xad uga yeelay dowladii Andalus reer Yurub dagaaladii caanka ah ee uu la galay amiirkani dowladaha reer Yurub waxa kamid ah macrakadii la oran jiray Zalaqa oo isagu ku gacan sareeyay dhowr sano ka bacdi dowladii muraabidiinta ee uu hogaaminayay amiir Yusuf bin Tashfin waxa ka guuleystay dowladii muwaxidiinta dowladii muwaxidiintuna waxay halkii ka sii waday taageeridii ay siineysay dowladii Andalus balse reer Yurub waxay si fudud uga takhaluseen dowladii muwaxidiinta ee difaaca u ahayd dowladii Andalus gabaabsigii dowladii Andalus waxa soo ifbaxay dowlad la oran jiray Bani Ahmar oo qarnaada ka dhisan waa dalka Spain waxaana tan muuqaal muhiim ah u sameysay dowladihii reer Yurub waxaana arkeen inay tahay mararkii ugu dambeysay ay dowladda Andalus ka sii jiri doonto dhulkan sidoo kale dowladda Andalus markii ay ka dhex baxeen madaxdii ugu waaweynaa dowladii cusbeed ee qarnaada laga dhisay ee la oran jiray Bani Ahmar ayaa ku guuleysatay in ay xukunto dowladda Andalus meelihii ay ka talin jirtay waxaana isaga kala dambeeyay dhowr boqortooyo inta ka bacdi waxa burbur ballaaran uu ku yimi dowladii la wareegtay xukunkii Andalus ee la oran jiray Bani Ahmar waxaana burburiyay hogaamiyihii mayalkaadka ee la oran jiray Fernando Athani sanadkii 1492